Wadamada ugu quwadaha waaweyn ayaa waxay maraakiibtooda iskugu keeneen Middle East-ga. Arrintaas ayaana keentay shalay galankii dambe in ay iska soo agdhowaadaan labada markab ee laga kala leeyahay Mareykanka iyo Ruushka, waxaana looga cabsi qabay inuu labadooda dagaal ka dhex qarxo. Markabka Mareykanka laga leeyahay ayaa laga soo agdhowaaday, hase ahaatee markabka Mareykanka laga leeyahay ayaa qoryihiisa wuxuu ku foorariyey midka Ruushka, isagoo u yeedhinaya hoonka digniinta. Hase ahaatee ugu dambeyn dhabarka ayuu ka maray, balse ila daawo muuqaalkan. barnaamij intaan la mid intayn ku kulmi doono sida ay nabadgelyo.